الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا waxaan rabaa inaan afar qodob hadda maanta sidoo kale aan ka hadlo oo arrimaha hadda haysto dalka. Mid waa madasha shirkadda uu ka socdo Dhuusamareeb. Tan labaad fariin ku socota gudoomiyaha gobolka Banaadir. Tan saddexaad sidee ku dhacaysaa iyadoo laga ka maqan yihiin gobolada iyo madaxweynaha dalka ra'iisul wasaaraha shirkadda Dhuusamareeb ka socdo. tan afraad waa in si degdeg loo helaa guddi farsamo. afartaas kaliya raba maanta inaan halkan dadka aan baraarujiyo oo ogeysiyo. Okay, number 2 gobolka Banaadir gudoomiyaha fariin ku socota waa 1 iyadaan ka bilaabaa 1 sababtoo waxaan ahay qof gobolka Banaadir ka soo jeeda. Okay, hadalkaygu koowaad waxa waaye gudoomiyaha gobolka Banaadir meesha looga tashanayo ayaha dalka doorashada looga tashanayo sidee xal lagu helaa maamul goboleedyada ay isfarayaan ee Dhuusamareeb shir ku qabsadeen. adigu ma ogtahay inaad gudoomiyaha hadda tahay inaad mas'uul ka tahay dhammaan ummadda degtay gobolka Banaadir oo laga rabo inaad maanta goobjoog ka ahaato meesha. wax adiga ku dhibaa wax dadka gobolkaaga dhibaayo waxyaabo badan ka soo lagu heshiinaa dadkaas waxay ku heshiiyaan biri xagee ku soconay. taas waa fariinta koowaad gudoomiyaha gobolka Banaadir sababtoo intaan la gaarin maqaamkii iyo maamulka intaan la gaarin. mar haddii la yidhaaho arrimaha siyaasadda haddii laga hadlaayo waa inaad goobjoog ka ahaataa oo gobolka adaa maanta gudoomiyihii gobolka adaa ah magaalada maanta adaa ah. Okay, madaxweynihii ma joogo ra'iisul wasaarihii ma joogo. Okay, ayagu waa tashanay waa arrimo siyaasadeed oo ay isku fahmi waayeen ayay u dhacday. laakiin gobolka danaha gobolka haddaan ka hadalno gudoomiyihii waxaa la rabaa inuu goobjoog ka ahaado. maba ogaba inuu isagu matalo inuu isaga mas'uul naga yahay maba ogaba you don't care. waxaasna lama rabo. waxaa la mid tahay madaxweynayaasha maamul goboleedyada musiishka ku fadhiiso waa same. You have to wake up. haddii la tuuray maxaa laga hor imaaday madaxweynaha iyo golaha wasaaradda barnaamijka iyo adiguna ma waxaa noqotay xukuumaddii ma ka tirsan tahay oo ma xukuumadda hadii ku magacaado kama tirsan laakiin waxa aad matashaa ummadda gobolka degta. You have to inaad shirkaas aad goobjoog ka tahay meeshan annaga noolagu shiraayo wax kale looma shirooyo annaga sida annaga nalaga yeelahay aan noola shiraayo shirkaas uu xag ka dhacay. danaha maqaamka laga hadlaya waxyaabo badan laga hadlaya. inta uu sheegay madaxweyne galmudug kuma soo dirin xataa halnino kuma soo dirin qofna annagana matasho oo meesha joogta maanta malaha second. Okay, taas waa mid gudoomiyaha wake up. tan labaad waxa waaye arrimaha maqaamka iyo gobolka Banaadir waa in si degdega intiisa dhicin doorashada iyo arrimahaas aysan imaanin ay wili sheekadu sidan ay tahay in guddi farsamo oo degdega la helo si degdegna loo dhisaa before inta dhicin doorashada waa in la helaa. wake up mudlod wake up Abgaalisman wake up Mataan Cabdul. there's no need inaad dadka aad sugtiin in maanta shirka xagga ka dhacay in la sugo maaha. we need annaga inaan sameyno oo doorashada soo socota oo dhacaysana xibintaada iyo qaybtaada aa ka tahay oo doorashada aa wax ka ogta oo maamulkaaga uu dhisan yahay. dad badanaa cagta noogu fadhiya waxaa layidhi dad adiga kaa tirsanaa cagta seenta gadaalkaaga kaaga fadhiya marka waxba ma qaban karti. you need wake up kaca wixiina isku haysatiinba isku haysta laakiin waa in loo istaagaa danaha guud in loo istaago. Okay, taasna waa qodob. ma rabo inaan aniga maanta hadalka inaan ku dheereeyno ma rabo dadku sababtoo dadku way ku dhibsanayaan hadal badan haama buuxshaa lirmud. tan madasha hadda ka socoto ayagu naftooda waa garawaaye inay anagu nawcaan yidhaahaan maamulka gobolka Banaadir aaw marka maxaa wixii ka soo baxo xaggee ku hirgelayaan yaa accept garaynaya. I don't know. So waa lugooyada
siyaasadda waddanka ka jirto asaas noocaasaba dalka dhanaa dhibaatadaas sida iska jirtaaba sababtaa lama rabo heshiis lama rabo arrimaha doorashooyinka dowladda waa ka hadasha exactly dhabarjab ay ku noqota ayaguna wabillahi tawfiiq marka ma sha allah tacaala waxaan aada ugu xumahay inaan shirkaas loo dhameyn waxaan rabaa muhiimadeedu waxaa waaye shirkaas looma dhamo wixii ka soo baxana hadda waxa anaga noqoseeya maaha danaha guud oo soomaaliyeed meesha haddii looga tashana waa in soomaaliya qofna aysan ka maqnaan haddii ayagu waxay rabaan ayagu ay samaysanaa ayaga anaga hoggaan nooma aha sooma waa maya dowladdan way dhammaanaya dowladda dambo wixii lagu heshiiyey kolley waxay qolo badana soo wacisay raalli ahaada marka wabillahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu